maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun ku riday eedeysane Cismaan Ibraahim Cabdi oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo waxaana lagu soo eedeeyay inuu dhawaan qof shacab ah uu ku dilay gudaha suuqa weyn ee magaalada Baydhabo saaka ayaa loo fadhiistay dacwad ciqaabeedkiisa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanle sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay in lagu xukumay dil toogasho kadib markii ay ku cadaatay dilka uu geystay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo taariikhdu tahay 23 bishii koowaad 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dil ah taariikhdu markay ahayd 22 bishii koowaad 2022 saacaduna ahayd 10kii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysana gacan ku dhiigle dable booliiska Cismaan Ibraahim Cabdi 22 jir ah in Yurub Mire Maxamed oo dhashay Qoryooley gobolka Shabeellada Hoose degan Baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo xafiiska xeerlaaninta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo la kaca u dilay taariikhdu markay ahayd 11 bishii koowaad 2021 saacaduna ahayd 18kii marxuum la oran jiray Axmed Madnuur Mursal ina Xaawo Maxamuud Mursal 33 jir ah kadib markii hal xabo ah ka foodhisabana uga dhuftay feeraha isla goobtiina ku geeriyooday marxuumka dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo suuqa Sariira xaafadda Bardaale dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul Baqara aayadda 345 suuratul Al-Maa'ida iyo qodobada 434 xeerka qaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 19aad xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor qirtay garsoorka maxkamadda horteeda in uu asagu dilay marxuumka kuna dhuftay hal xabo ah ka foodhisabana markay aragtay sawirka laga soo qaaday meydka marxuumka markay aragtay fiidiyoogii ay duubtay kaamirada qarsoon ee goobtaas ku xirneed oo si toos ah u cadeynaysa qaabkii uu dilka u geystay eedeysanaha markay dhageysatay gabagabadii xeerlaaliyaha oo ahayd in eedeysanaha lagu xukumo xukun waafaqsan shariicada islaamka markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududay maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyay sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dembiile gacan ku dhiigle dable booliiska Cismaan Ibraahim Cabdi uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Axmed Madnuur Mursal cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan rafaan wabillahi tawfiiq taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay Aamin Madaruur waxa uu dignin dheer u jeediyay guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed taasay bacdeeyay intii oo maxkamadda ciidamada meeladay sharci iyo nidaamkii oo dawladda federaalka ama dawladda Soomaaliya digsinay intii ka shaqeeyay unuun way baraan la keenaa lanki askari kas indile lan shaabe ama askari oo u sameeyo la iif macna lan indile way hadii ilaahay way bal waafiji doona sharciga geeka may baa ka digaana ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska antii oo lan askari lanki shaabe dile u jaasintiis dil toogasho oo ma lan qaado doona diya la qaada iyo reer hebelo ama uni hore haan dhahayaan ma suurta gal doonta hadii ilaahay qof kasto lan shaabe dil laakiin askari walaajiye diloon dil unun hadii ilaahay maxkamadda bahab meeraaj kaas ko kunta hadii ilaahay wal fuliye ciidamada way baan ka digaanay mar lamaadan ka digay mar saddexdan ka digay antii oo goriidiyo ka adkaadan guriga markore inta koow la qaada ka baad iimaanka la fur lagu garay ka baad shiishka la qowdo haba madrasa badadiyaas laakiin meelay oo ka fakati guriga baday ingili madareera soo bilaayar qof kasta oo ciidamada qalabka sida ka tirsan ama ciidamada booliiska guriga kaaw hadowda madi guri fakada ama guriga baddiida madeer samaas adin hobla dil walka dileelay lan dilo way baan baahan nimanka nabadiidka ayaan baahan oo mutabad ka dhibaatada kaayano min maalan qariyayaan
yoo dil ma laakiin shacabka hadmii ma anti aad waadiyay tilkii targali ma anti aad dil Hinda Ali Cismaan warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Baydhabo.